Ku soo dhawaada Daily Dose of Anime Recaps. Fiidiyowgan waxaan ku eegaynaa qaybaha 5 ilaa 9 ee Swallowed Star. Dhammaadka qarniga, fayras qarsoodi ah oo la yiraahdo Revirus ayaa ku faafay hawada dhulka, wuxuuna dilay 2 bilyan oo qof, isagoo xayawaanka u beddelay bahalo awood leh. Dowladaha adduunka ayaa isticmaalay hub nukliyeer si ay u joojiyaan bahalada, balse bahaladii way badbaadeen, ilbaxnimadii bini'aadamkuna ku dhowaad way dabargoday. 5 dal ayaa badbaaday, waxayna sameeyeen isbahaysi si ay dadka ugu ilaaliyaan saldhigyo waaweyn. Sida xayawaanka, dadka qaarna waxay heleen awood gaar ah, waxayna noqdeen dagaalyahano, kuwaas oo difaaca bini'aadamka. Dagaalkii Cobra. Luo Feng wuxuu dareemaa hoos u eg mas, balse markuu indhaha furo waxba ma arko. Markuu tago qolka cuntada wuxuu arkaa Cobra, awradiisana waxay u muuqataa mas hoos u taagan. Dhalinyaro kale ayaa isku dayay inay cabsi geliyaan, laakiin Luo Feng wuxuu yiraahdaa dhammaantood ayuu la dagaalamayaa, xitaa Cobra. Cobra wuxuu tusaa xawaare aad u sareeya, wuxuuna Luo Feng ku noqdaa cadowgiisii ugu adkaa ilaa hadda. Markuu mindiyo ku tuuro, Luo Feng wuxuu furaa 5 acupoints oo tamar ah, wuxuuna bilaabaa telekinesis. Xanuun badan ayuu dareemaa, ugu dambayntiina waardiyaashu dagaalka way joojiyaan. Awood cusub. Luo Feng wuxuu ku baraarugaa isbitaalka isagoo leh dareen xooggan iyo telekinesis. Wuxuu ogaadaa in madax xanuunkiisii hore uu ka imaanayay tamar badan oo uusan xamili karin. Maamulka xabsiga wuxuu sii daayaa, wuxuuna sheegaa in maxaabiistii lagu soo diray ay soo kiraysteen Zhou Zhang Haobei iyo adeerkiis. Zhang Haobei waxaa canaantay adeerkiis oo ah dagaalyahan awood leh. Wuxuu yidhi Luo Feng waa daciif, isagaana la tacaali doona. Xuxian waxay u mahad celisaa Luo Feng, waxayna u sheegtaa inay mar walba rumaysnayd. Waxay ballanqaadaa inay ka caawin doonto inuu dunida caawiyo. Tababarka iyo heerarka dagaalyahanada. Instructor Zhang wuxuu sheegay Luo Feng inuu si weyn u horumaray. Wuxuu baray micro body movement, taasoo ah inaad ka saadaaliso dhaqdhaqaaqa cadowga adigoo isticmaalaya dhaqdhaqaaqyo yaryar. Wuxuu sharaxay heerarka dagaalyahanada. Soldier, Senior Warrior, God of War, iyo heerar hoose, Primary, Intermediate, Advanced. God of War-yada waxay jebin karaan dhismayaal, halka kuwa ka sarreeya ay xitaa burburin karaan caalamka. Nolol cusub. Luo Feng wuxuu qoyskiisa u raro villa weyn. Dhammaantood aad bay u farxaan. Imtixaanka goobta dagaalka. Luo Feng iyo dagaalyahanada kale waxaa loo diray inay gooyaan dhegaha bahalada si cilmi baaris loo sameeyo. Wang Dong ayaa la tartamay Luo Feng. Adeerka Zhang Haobei wuxuu si qarsoodi ah u geliyey Golden Eagle goobta imtixaanka. Dagaalka Golden Eagle. Luo Feng wuxuu la dagaalamaa Golden Eagle. Markii hore wuxuu u malaynayaa inuusan ka adkaan karin, laakiin wuxuu isticmaalaa xeelad maskaxeed. Wuxuu u tuuraa seeftiisa si uu u beddelo jihada duulimaadka, kadibna ku daboolaa burbur, ugu dambayntiina madax ayuu ka gooyaa. Kormeerayaashu waxay ogaadaan inuusan nasiib keliya ahayn, wuxuu qorsheeyey dhammaan tallaabooyinka natiijada imtixaanka. Wang Dong ayaa galay kaalinta 1 aad, Luo Feng kaalinta 2 aad, balse Luo Feng wuu gudbay, taas oo ugu muhiimsan. Haweenaydu waxay u sharaxday in iyadu tahay hagihiisa gaarka ah, isla markaana halkan uu ka heli karo macluumaad ku saabsan dagaalyahano, hub, hagitaan, buugaag gaar ah, dhar, daawooyin, gaadiid iyo waxyaabo kale oo badan. Luo Feng wuxuu weydiiyey xog ku saabsan Spirit Master, sayidka ruuxa. Waxay u sheegtay in Spirit Master ay 2 nooc yihiin. Hal kuwa isticmaali kara telekinesis, maskax ahaan wax dhaqaajiya. 2 kuwa weerari kara ruuxa ama maskaxda cadowga. Waxay kaloo sheegtay in Spirit Masterku ay si degdeg ah wax u bartaan marka loo eego dagaalyahanada caadiga ah, taasoo ka dhigaysa in ay 2 darajo ka sarreeyaan dagaalyahan caadi ah oo isla heer ah. Luo Feng wuxuu garwaaqsaday in tani ka dhigayso isaga dagaalyahan heer sare ah oo sare. Wuxuu codsaday buugaag ku saabsan weerarada horumarsan, laakiin wuu la yaabay qiimahooda qaali ah. Haweenaydu waxay u sheegtay inuusan walwalin, isla markaana uu buugaagta qayb u iibsan karo. Waxay tusisay buug uu qoray Hong, oo ah dagaalyahanka ugu awoodda badan adduunka, kaasoo hal gacan ku burburin kara waddan weyn haddii uu rabo. Kadib wuxuu weydiiyey buugga Thunder Saber oo uu qoray ninka labaad ee ugu xoogga badan dunida, wuxuuna iibsaday 3 marxaladood ee ugu horeeya.
Markii uu iibsaday ayuu ogaaday inuu lacag u waayay hubka. Dagaalyahan sare oo ka tirsan naadigiisa ayaa u yimid albaabka isaga oo u keenaya buugaagtii, wuxuuna u sheegay in buugaagta noocaas ah ay dagaalyahan gaar ah keenayo sababtoo ah waa xog qaali ah. Wuxuu uga digay in haddii uu xogtaas faafiyo, dhammaan dagaalyahanada iyo waddamada dunida ay ugaarsan doonaan. Waxaa sidoo kale loo sheegay in baaritaan lagu sameeyey dhacdadii xabsiga, laguna xaqiijiyey in Shang Haobei yahay dembiilaha. Isagoo isku dayay inuu dilo dagaalyahan mustaqbal leh, wuxuu wajihi karaa 2-3 sano oo xabsi ah ama xukun dil ah. Adeerkiis oo madax u ah Thunder and Lightning Martial Alub wuxuu rabaa in arrinta maxkamad la'aan lagu dhammeeyo. Adeerkii Shang Haobei iyo 2 dagaalyahan oo kale ayaa yimid si ay u cabsi geliyaan Luo Feng, laakiin dagaalyahanada waaweyn ee naadiga Luo Feng oo ay ku jiraan macallin Shang ayaa la socday. Waxay u sheegeen in Luo Feng uu yahay xubin qoyska kooxda ah, isla markaana aysan ogolaan doonin in lagu xadgudbo ama lagu khiyaaneeyo heshiiska. Ugu dambayn, Luo Feng wuu diiday heshiiska. Wuxuu yiri wuu cafin lahaa haddii isaga keliya la dhaawici lahaa, laakiin maadaama qoyskiisa daacadda ah la farageliyey, tani waa dembi aan la cafin karin, wuxuuna hubin doonaa in cadaalad la keeno. Waxaa loo sheegay in Director Hugo uu wareejinayo kooxda heer sare ah. Ninkii buugaagta keenay, Shengu, ayaa noqday hogaamiyaha kooxdiisa Fire Hammer Team, wuxuuna u iibiyey hub iyo dhar, isagoo ku yiri inuu dib u bixin karo. Luo Feng waxaa loo sheegay in hawshiisii ugu horreysay uu la galayo Fire Hammer Team. Waxaa loo soo bandhigay Captain Go Feng iyo xubnaha kooxda, Wei Kei, Shang Kei iyo Wei Qing. Hawshooda waxay ahayd inay badbaadiyaan koox saynisyahano ah oodna ka qaadayay bahallada, kuwaas oo la waayay. Waxay haystaan 1 saac oo keliya ka hor inta saacadaha raadraaca batarigoodu dhammaanayo. Waxaan markaas aragnaa kooxda saynisyahanada oo bahallo ku soo dhowaanayaan. Mid ka mid ah, Ruxin, waxay tuurtay saacadda si ay bahallada uga leexiso asxaabteeda. Fire Hammer Team waxaa weeraray bahallo, waxaana Luo Feng ka gooyey kooxdiisa doofaar halgees leh. Captain Go Feng wuxuu arkay inuu isticmaalayo Thunder Saber Technique kii koowaad, inkasta oo uusan weli ku fiicnayn. Si kastaba ha ahaatee, wuu dilay bahalka, taasoo noqotay guushiisii ugu horreysay ee ka dhanka ah bahal heerfa. Waxay heleen qalab ultrasoni ah oo bahallada soo jiidanaya. Waxaa la ogaaday in 2 nin oo kale ay qalabkaas dhigeen, kuwaas oo ka tirsan kooxda Huya Squad oo uu adeerkii Shang Haobei hogaaminayo. Waxay jebiyeen saacaddii isgaarsiinta si loo waayo raadkooda. Kooxda Huya waxay kicisay qalabka Sonic, taasoo keentay in bahallo badan ku soo wada socdaan Fire Hammer Team. Ruxin waxay ku dhuumatay dhisme, laakiin mid ka mid ah Huya Squad wuxuu jebiyey albaabka si bahalladu u dilaan, si markhaati uusan u jirin. Ruxin waxay isticmaashay dab si ay uga baxsato, balse waxay la kulantay bahal aad u weyn. Luo Feng ayaa badbaadiyey. Iyaga iyo Fire Hammer Team waxay u carareen dhisme kale si ay gabaad u helaan. La socda qeybaha kale sidaas iyo nabadgelyo.